قرآنك وقصة عن قصة يوسف. هل عنوان ما كسو قادم يوسف عليه السلام ولا له ويحسدين عيل بيكون ردين نما سفر عيل كنتي صومرين بيبي كداسده استرادين يوسف با كغا سو بخاي واي قادانو عزيز مصر بقركي مصر بي كيبيين فتربى وترعرع في قصر ملك waxa uu ku barbaaray nabi Yusuf boqor qasrigiisu ku dhex barbaaray quruxda aadam awlaadiisa ilaahay uu qadarayna kala badh ba nabi Yusuf la siiyay kala badhkii kalena bani aadamka adduunyada ku nool oo dhan ba loo qaybiyay baa leeyahay intuu nabiga qurux leeyahay marka kala barkii kala ayaa bini aadamka kala loo qaybiyay mid sankay kaga dhacday mid indhahay kaga dhacday mid formigay kaga dhacday soo baxaynde soo salaama mid hadalkay kaga dhacday qaar ba hadal qurux badan hadal macaan dhagahay kaga dhacday ninba meel buu ku qurux badan yahay ولكن يوسف عليه السلام حاضر ملينيسا شطر الجمال آدم أولادي سقروح دي إلهي وقدري بالليلي كلبر انت الله سوق عليه النبي يوسف لطول لك كلي مركز وليبا كبر باري بقر قريجيس نكا دلن يرادا إلا يدي قروح دي بني آدم كالله وطلق لي كلبر با كلي اللغو دي يقول لسيي ناكتا نكا لك ولنتي أركتا معي سورانيسا اور معي سورانيسا كسونا بي سورانيسا إنو كدافين يا سلام بقركي haweenaydiisi boqoradii marwadii boqorka ayaa mar alle markay Yusuf way diranaysaa lawa qulaamkeyga waa adoonkeedii ayaa ka gato iibsaday socodkiisa la yaabtaa suuradiisa la yaabtaa gacmihiisa la yaabtaa formigiisa la yaabtaa sijeedkiisa la yaabtaa soojeedkiisa la yaabtaa waxay tiri wallahi kan inuu ku dhaafin ya salaam ya salaam لكن waxay ka warqabin shakhsigan shakhsi caadi ma aha waa shakhsi ilaahay ila sanay weeyaan xil boqorku uu ku maqan yahay socdaal ayay albaabadii oo soo xidhatay boqorada daayiman gabdha ag jooga u khidmeeya ragna aqalka ilaaliya dhinac walba ciidan baa ka taagan ragii ciidankiina waxay tiri dibadda banaanka ka ilaaliya guriga gabdhihii u shaqeynaya khadamkeygina waxay ku tiri waa fasaxantiin تضبع الباب علماء قرية تضبع الباب واسكو حكتي سوق فلتي مرقاسة طرف الحنة أصل حلة يوسف